بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنكeenii labaad ee ku saabsanaa arrimaha hogaaminta kulankeenii hore waxaynu kaga soo warramay hordhaca inaynu ka samaynay waxoogaa hordhaca ku saabsan hogaaminta iyo halka kasoo bilaabantay qaybaha hogaaminta iyo waxa la yidhaahdo allahumma salli calaa maxamed shaqooyinka hogaamintu qabato iyo astaamaha looga baahan yahay qofka hogaamiyaha mar haddaynu kulankeenii hore ama qaybteenii hore kaga warramay waxa la yidhaahdo intaas maanta waxaynu isla eegi doonaa haddii ilaahay nafta inoo daayo shaqooyinka ama ficilada ay tahay in laga helo qofka hogaamiyaha iyo shuruucda ay tahay inuu raaco marka markaynu ka warramayno shayga la yidhaahdo hogaamintu inta badan ma aha hadal ma aha aqoon ma aha fahan mana aha waxa la yidhaahdo iska yeelyeen waa shay ay tahay inuu sugnaado oo ficil ah marka markaynu ka warramayno hogaaminta aynu leenahay hogaamintu waa ficil waxaynu ka hadlaynaa qofku waa waxa uu sameeyo iyo sida uu u sameeyo iyada oo lala eegayo duruufaha xaaladaha iyo mar walba waxa uu ku jiro ee uu ka hadlayo waxaa la eegayaa waxaa la yidhaahdaa waxa aad tidhaahda maaha ama waxa aad aaminsantahay maaha ee waa waxa aad samayso marka xaalad gaar ah kula kulanto marka qofka hogaamiyaha ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay waxaa ka mid ah horta inuu naftiisa yaqaano inuu naftiisa yaqaanaana waxa weeye qofka ibni aadamkaahi hogaamintiisu waxay ka bilaabantaa inuu naftiisa hogaamiyo qof aan naftiisa aqooni waxay tahayna ma hogaamin karo marka inaad naftaada taqaanaa ugu horeysa inaad naftaada hogaamisaa ku xigta inaad dareenadaada iyo sida waxa aad dareento taqaanaa ka mid ah inaad dareemada dadkana fahmi kartaa ka mid ah waa cilmi dhan oo la yidhaahdo emotional intelligence oo uu soo saaray cilmiga leadership oo ka warrama dareenkaaga inaad ilaalin karto dareenka dadka kalena aanad ku xadgudbi karin aad ilaalin karto la socon karto ogaan karto waxa weeye qofka ibni aadamkaahi hogaamintiisu waxay ka bilaabmaysaa naftiisa qofka naftiisa hogaamin kari waaye cid kalena meel ma gaarsiinayo soomaalidu waxay odhan jirtay ninkaad kabaha ka tolanayso kabihiisaa la eega ama tiisaba daryeele ayaa tu kale ku dara marka markaynu ka hadlayno hogaamintu waa shakhsi waa shayga keliya ee qof waliba u baahan yahay arrinta labaad aynu isla eegayna waxa weeye dadka qof kasta oo aad tidhaahdo waxaan ii qabo ama waxaan ii sameen wuxuu ku odhanaya cilmigeeda ma lihi haddaad tidhaahdo qof imud aan dhakhtar ahayn wuxuu ku odhanaya dhakhtar ma ihi haddaad tidhaahdo qof aan xisaabiye ahayn waxii xisaabi wuxuu ku odhanaya xisaabiye ma ihi haddaad tidhaahdo qof allahumma salli calaa maxamed aan dareewal ahayn gaari ii kaxay wuxuu ku odhanaya ma aqaano haddaad tidhaahdo qof aan baylood ahayn diyaaradkii wuxuu ku odhanaya weligeyba ma fuulin mana baranin laakiin ibni aadamku haddii la yidhaahdo kaalayna hogaami nin waliba cumaamadu soo xidhanaya wuxuu odhanaya ii baneeya maxaa sababay in qof waliba hogaaminta ku dhiirado waxyaabaha kalena yidhahda aqoonu ma lihi maxaa sababay in dadku ay u diyaargaroobi waayaan inay bartaan hogaaminta iyo waxa ay tahay qofka ibni aadamkaahi inuu sameeyo si uu hogaamiye fiican u noqdo waxyaabaha sababay runtii noo soo baxay waxaa ka mid ah kow qofka ibni aadamka ilaahay subxana watacaala markuu abuuray qayb hogaaminta ka mid ah ayuu siiyey hogaaminta markaad eegto ma jiro qof wada leh macnaha waxa hogaaminta looga baahan yahay ma jiro adduunyadana ma joogo qof wada leh marka laga reebo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii ka horreysay oo ilaahay subxana watacaala u diyaariyey waayahay mana jiro qof ka wada maran mana jiro qof ka wada maran laakiin cilmiga hogaaminta maxaynu u baranaynaa waxaynu u baranaynaa inaynu marka hore baranno ficilada iyo shuruucda ay tahay si hogaamiye fiican qofku u noqdo inuu ogaado waxay yihiin waa noocma ficilo noocma baa looga baahan yahay sharciyo noocee bay tahay inuu raaco xirfado noocee bay tahay inuu yeesho muxuu xaaladaha gaar xaalada caynkan samayn karaa muxuu sidan yeeli karaa waa xog la ururiyey oo dadkii ummaddan adduunyada soo hogaamiyey laga ururiyey oo ay ambiyada iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ugu horeeyaan marka runtii marka laga hadlayo shayga la yidhaahdo hogaaminta waxaynu ka hadlaynaa inaynu ogaano astaamaha laga rabo qofka hogaamiyaha ah waaya
markaynu ogaano astaamaha laga rabo ayaynu inagu isbarbar dhigaynaa qof waliba sidiisa shakhsiga waa inaga nidhi hogaamintu waa shakhsi qof waliba markaa sidiisa shakhsiga ah buu isu barbar dhigaya wuxuu odhanayaa astaamahan intee ayaad leedahay markuu taa ogaado meel fiican buu taagan yahay sidoo kale wuxuu u baahan yahay oo labaad inuu ogaado waxa la yidhaahdo intee ayaanan lahayn labadaa qofku markuu xaqiijiyo naftiisa wuu gartay waxay tahay raxima allahu imra'an carafa qadra nafsi allaha u naxariisto qof gartay naftiisu waxay karto ayaa jirta way marka runtii markuu qofku labadaa garto ka dambe maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inta aanan lahayn laba wadaa ii furan in aan awoodo inaan horumariyo iyo in aan awoodo inaanan awoodin inaan horumariyo inta aan awoodo inaan horumariyo waa inaan isku dayo inaan horumariyo oo ku darsado intii ilaahay subxana watacaala ii hibeeyey inta aanan awoodin maxaa ila gudboon waxaa ila gudboon in aan raadsado cid leh oo iga caawisa waayo way jiraan cid leh oo ku fiican marka runtii waxyaabaha hogaamintu keento waxaa ka mid a markuu qofku naftiisa ogaado markuu qofku naftiisa fahmo macnaheedu waxa weeye wuxuu garanayaa wuxuu karo wuxuu garanayaa waxa aanu karin waxa uu garanayaa cidda uu ka raadsanayo waxa aanu karin markaasaa waxaa soo baxaya hogaamin fiican iyo hogaamiye fiican iyo hogaamin fiican iyo hab hogaamineed wanaagsan waayahay intaa markaynu garanay qofku inuu naftiisa garto naftiisa fahmo wuxuu kara garto waxa aanu karin garto waxa aanu karin cidda uu ka doonanayo uu garto waxa uu u baahan yahay inuu garto ficilada uu samaynaya maxay yihiin markaas ficilada uu samaynaya markaynu si kooban u sheegno waa inay noqdaan ficilo iyo maxaa la yidhahdaa waxqabad mar walba dan u ah cidda isaga ishordhigtay ama qofkani uu hogaamiyaha u yahay hogaamintu marka keliya ma aha inaad xil hayso keliya ma aha in lagu magacaabay keliya ma aha inaad suldaan tahay keliya ma aha inaad intaasu waa qayb ka mid ah hogaaminta laakiin hogaamintu waa astaamo waa ficilo waa wax la sameeyo qof baa jira aan wax xila oo uu hayaa jirin haddana dadku ku daba faylaan oo aragtidiisa la dhegaysto oo wuxuu sheega la maqlo oo siduu u hadlo la fuliyo oo wuxuu dadka u sheego in ay maqlaan maxaa keenay waxa keenay astaamahan ayuu leeyahay astaamahana waxaynu nidhi waxa asal u ah ammaano iyo maxaa la yidhahdaa rusheegnimo waxa asal u ah inaad naftaada taqaano waxaad qaban kartid waxaanad qaban karin inaad ka fakarto danta guud oo waxa weeye waxa la wada leeyahay aad mar walba xoogga saarayso marka runtii waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah qofku inuu yahay qof tusaale ah oo waxa weye wax kasta oo uu leeyahay ha la sameeyo ama uu diidayo uu yahay qofka ugu horeeya ee samaynaya waxa uu leeyahay ha la sameeyo samayn keliya maaha ee dadka oo dhanna ka badsanaya tusaale ahaan haddaad tidhahdo runta hala sheego waa inaad noqoto qofka ugu runta badan haddaad tidhaahdo xaaraanta ha la iska ilaaliyo inaad noqoto qofka ugu fog xaaraan haddaad tidhaahdo waqtiga ha la ilaaliyo inaad tidhaahdo qofka ugu waqti inaad noqoto qofka ugu waqti ilaalinta badan leh runtii markaa waxaynu ka hadlaynaa qofku waxa uu sheegayo iyo waxa uu samaynaya waa inay isleeyihiin markaynu ka hadlayno waxyaabaha looga baahan yahay waa inuu qofku tusaale yahay waxaynu u baahannahay qofku hadaf la wada leeyahay oo isaga iyo dadkaba ka dhaxeeya inuu yahay qof riixaya inuu yahay qof riixaya maxaynu uga jeednaa inaanu ahayn qof dan gaara ka warramaya oo ah inuu taa ku jeclo marka runtii markaynu soo ururino macluumaad guudna aynu bixinayna aynaan cashar iyo buug akhriyaynin waxaynu odhan karnaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka looga baahan yahay ama ficilada ugu wanaagsan ee ugu muhiimsan ee looga baahan yahay kuwaasaa ka mid noqon kara shuruucda ay tahay inuu raaco waxa weeye waa inuu yahay qof mar walba aqoontiisa kordhinaya waa inuu yahay qof wax akhriya oo buugga oo keliya maaha duruufaha xitaa adduunyada ka jira akhriya waa inuu yahay qof allahuma salli calaa maxamed saamayn leh oo waxa weeye shuruucda uu raacayo inuu dadka saameeyo saamaynna ma yeelan kartid ilaa aad noqoto qof waxtar leh oo bulshada wax taraya waa inuu yahay qof dadka waxa uu u sheegayo waxa weeye garan kara ama fahmi kara waa inuu yahay qof dadka awood siinaya oo ku caawinaya inay qaban karaan waxa uu qaban kara iyo ka badanba waa inuu yahay qof dadka dhiiri gelinaya oo tusaya inay iyagu wax qabsan karaan waa inuu yahay qof dadka u horseeda inay noqdaan dad kalsooni leh oo isku kalsoon oo aaminsan inay wax walba qaban karaan waa inuu yahay qof doonaya
allahuma salli calaa maxamed adduunyada inuu kaga tago raad anfac leh. nabiguna alayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay saddex shay ayuun baan adduunyada qofku markuu ka tago ka go'in camalkiisa kale oo dhami wuu go'a. saddexda shay aan go'in waxa weeye waa waa cilmi naafico oo uu qofku ka tegey, waa walad wanaagsan ama ilmo fiican oo uu adduunyada kaga tegay oo waxtar leh, iyo maxaa la yidhaahdaa sadaqo ama waxa la yidhaahdo awqaaf uu adduunyada kaga tegey. waxaan aaminsanahay oo runtii lagama maarmaan ah ama aan u arkaa anigu qofka hogaamiyaha inuu yahay qofka intaaba sameeya. marka haddii intaasi ay diyaar kuu tahay ama aad u diyaar tahay inaad samayso, waxaynu odhan karnaa waxaad tahay qof hogaamiye. intaynu xalqadan ku kulmi doonno, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.